dadkan waxay ku dibad cidlaa iyo weli goobaan loogu talagalay mid badan kooda dhaawacmay goobtii loogu talagalay dawladdu ugu talagashay qof ku dhaawacmay qof ku dhintay midna ma jiro aniga wasiir waqtigii xukuumadda maxamed adoo wasiir ku-xigeenka amniga gurigaaga la weeraray xabad baa lagugu riday maxkamad baa ku xukuntay waa lagu xiray haddana adigu waqtigaa waxaad isku difaacday rasaas waxaana sheegtay inaad saxsanayd ciidanku khaldan yihiin maanta ciidanka rasaaseeyey dad bilaa hub ah iyo kuwii adigu iskaga difaacaysa xabaddu maxay ku kala ana gurigeyga lagu soo weeraray shariicada islaamkuna iyo dastuurka qarankuba mudaarada xaq u leeyihiin bay dadkan waxay ku maanta xaq u leeyihiin ku jira maanta ku sheego maanta cirro dhowr iyo 30 qof buu ku haystaa meesha oo ciidankiisa oo reer jifadiisiya meedan awood Saadiga yiri awood dawladnimada leenahay dawladda dalka taliso ma baahnin hadii ciidankii uu cirro oo aan ciidanka gacanta ku hayn oo aan maamulaynin gacanta ku haysto asaad sheegayso awoodda dawladnimada maxaad ugu maamul anaga qiimaha la qiimo loogu fadhiyo wallahi ma jirto wax allaala waxay ku hadlaan wax qiimo loogu fadhiyo tigii ololaha beelaha Soomaaliland bad cod ka doonaysay beelbeel baa loo tagay Suldaan Xasan oo hadda madaxweyne Muuse isqaniinsan yihiin ayaa beelaha Soomaaliland cod weydiinayay hadaan Soomaaliya dawladnimada ku dhisnaan beelnimo maxaad beelaha ula fadhiisan codka wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka Soomaaliland Cabdilaahi Abokor Cismaan waxa uu ka hadlay go'aankii dhawaan ay soo saareen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland kaas oo ay ku sheegeen inaanay u aqoonsanin xukuumadda iyo waliba madaxweynaha Soomaaliland kuwa sharci ah isla markaasina aqoonsiga ay kala laabteen wasiir Cabdilaahi Abokor Cismaan oo telefishinka MMTV kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn yiri isleeyahay waa hadal aflagayri nidaamka dawliguna wuxuu maraaday process dawladda horta waqtigeega rasmiga shanta sanadood wuxuu ka ekaa waa December 13-keega November 13-keega maaha nimanka waxa ku yar dhacay wuxuu gaadayay waynu u cudur daaraynaa qodobka 3-aad dastuurka qaranku wuxuu sheegay haddii waqtiga doorashada duruuf kastoo jirta uu suurtagal ku noqon wayna golaha gurtidu ay xaq u leeyihiin inay kordhiyaan anu waxaan isleeyahay waa hadal af laga yidhi halkaa laga yidhina ma dhaafsiisnaa oo maanta baarlamaanka wanagaan wada shaqaynaynaa hay-adii dawladdu waa wada shaqaynayaan runtii aqoonsina anigu ugama baahninba aqoonsi sababto iyaga aqoonsi anaga nooga baahan dawladdu iyadaa dhaqaalaha siisa iyadaa borogtaad garayso noloshooda iyo xafiisyadooda ilaalisa marka anigu ugama baahninba wax aqoonsiya inaan aqoonsadaan iyo inaan aqoonsana wax macna noogu sameynaysaa total ma jirto bulshada 50% laba xisbi qaran oo haysta kalsoonidooda inay aqoonsan waayaan soo fashil iyo ceeb kuma xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi hogaamiyo aadaguna wasiirka u tahay ma arko wax dhibaato ku jira marka horeba waxaan u arkay in natiijadiida in ahay daciifnimo sababtoo ah laba nin oo tartaman inuu ba guuleysan lahaa maalintan hadalkiisa waxa ka mid ah Muuse uma tanaasulina shacabkana tanaasulay runtii anigu ismalihi taasina waxbay bedeshay tanna waxbay bedelaysaa rayga guud ee Soomaalilandna waxa weeyaan waxa la isku eegay waa majority xisbigani marka hore majority buu ahaa imankana wali majority-giisii iyo deegaamadiisii majority ku ahaa uu haystaa midda labaad waxa kaloo nasiib wanaaga deegaamadan majority ku hayno ma baahnidina shacabka Soomaaliland waxaan uga jeedaa imanka Soomaaliland si guudna xukuumaddu iyada ugu ah xukuumad labada dalka ka jirtaana total ma jirto waxa kaloo aad ogtahay qodobada ay soo saareen contradiction ba isku iyaga iska hor imanayay macnaheedu waxa weeyaan 9 bilood ayaan ogol lahayn doorasho lagu qabto waqtiga transitionalka ayaa haynaya mana aqoonsin haddana xukuumadda marka waxay muuqataa wali wakiilada aqoonsiin waxayna ka dhigtay gudoomiyaha golaha wakiiladu noqdo kusmaa madaxweynaha gudoomiyaha golaha ma noqon karo sababtoo duruuf sharci ma duruuf ku noqon kara ma jirto executive baa la doonaya iyagoo ma aha executive ma iyagoo sharci dejin weeyaan dawladda waa 3 dhardhaar marka dhardhaarka hogaamiyeynta badan waxa weey waa dhardhaarka executive marka executive laan dawladda jiri karba maysaba xukuumad la'aana dawladda ma jiri karayso xukuumadda dawladdu way kala duwan yihiin marka runtii waxa isleeyahay waa hadal meel cidla ku dhacay maraan kalsoonida shacab badan oo deegaano badan dega oo reer Soomaaliland oo taageero ah kalsoonida deegaanadaas ay ka soo jeedaan labada gudoomiye xisbi oo burco ku shiray oo arrimo soo jeedin doorashada madaxtooyada soo horeyso waxaas oo dhan wax la leeyahay waa iska natiraysan ma dawladdiinu ma dadka Soomaaliland baad kala lex jeclaysanaysan oo deegaamada adiga madaxweyne Muuse Biixi aad ka soo jeedaan u baad rabtaan inaad u talisaan ma aanu si guud Soomaaliland xuduudna way leedahay xadna way leedahay
marka anigu Soomaaliland xuduudahayga nooma kala qaybsanaa sababta madaxweynaha marka lagu dhaarinayo soo jeedinta beesha weyn maqashaa beesha beel iyo dawladnimo waa kala duwantii dawladnimo soo beel marka horta dawladnimo beelo kala duwan tahay nidaamka siyaasiga Soomaaliland waxa la yiraahdaa beeluhu kama tirsana marka laga hadlayo nidaamka xukuumadda waxa la yiraahdo waa markaygiina horta niyo ma shaqeyso marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliland xisbigan mucaaradka sheegaysa dadka inuu wax ka iibiyo ra'yi iyo barnaamij iyo inuu wax ka iibiyo laakiin waxaad moodaa waxa ogeena ku rusii yihiin waa markaygii siyaasaduna maaha waa markaygii siyaasaddu waxa weeye waa inaad qofka tusta qorshe maangala oo suurtagal ah hadhow tolanaad fulin karto marka runtii waxaan sileeyahay waa iska daciifnimo arrinkana arrin aynu ku daalaynaba anaga qiimaha la qiimo loogu fadhiyo wallahi ma jirto wax allaale waxay ku hadlaan wax qiimo loogu fadhiyo tigii ololaha beelaha Soomaaliland baad cod ka doonayseen beelbeel baa loo tagay Suldaan Xasan oo hadda madaxweyne Muuse isqaniinsan yihiin ayaa beelaha Soomaaliland cod weydiinayay haddaanay Soomaaliland dawladnimada ku dhisnayn beelnimo maxaad beelaha ula fadhiisanaysaa cod ka weydiisanaysaa waxaan ku sheego beel dhaqan madaxweynuhu beel ugu tagay marnaba Suldaan Xasan waa shakhsi laakiin madaxweynaha Suudaankiisa Suldaan madaxweynuhu cid kastoo Suldaan Soomaaliland madaxweynuhu waa Suldaan cid kastana isagu madaxweyne marka ololaha ku jira muxuu soo noqon waayay wuu ahaa weligiiba wuu ahaa sababta guddi kastoo campaign la magacaabay Soomaaliland way ka muuqatay anagu ma ahayn cunsuriyiin manin reer gaaran nooma shaqeynin guddi kastoo gobol kasta beel kasta Soomaaliland iyo cid kasta way ka muuqatay ma ahayn marka siyaasadda iyadu ma ahayn siyaasad based beel ku ah laakiin xisbiyada mucaaradka eed moodaa inay marna yihiin beel marna ay yihiin xisbiyo waxa kale oo moodaa iyaga laftoodu inaanay waxba ku wada soconin oo waxay kala iibinayaan waa digay dambe sibal oran jiray maanta hadday run ka tahay oo ay doonayaan inaanay doorashada ururada gelin bulmada soo saaray statement ay ku leeyihiin gelimayno doorashada ururada waxaan ku tusi doonaa bariyagoo ururada galaya mudaharaadyo ayaa Soomaaliland ka dhacay waqti dhaweytoole habeen dhaweytoole markii arrintan soo baxday burco dad baa ku dhaawacmay sidaad u aragtaa dad shacab ah wasiir oon hubaysnayn in xabad la dhaco oo la dhaawaco qaarna ay dhinteen mudaharaadyada hore dunia waa ayaan daro nidaamka dawladnimaduna waxyaabo badan buu leeyahay wax kastana waxa ka sareeya amniga qaranka ka sareeya shaygu haddaan waafaqsanayn shuruucda iyo xeerarka dalka xeer 51 2012 wuxuu siinaya inaad samayn karto mudaharaad laakiin mudaharaadkaasi aan waxaan aaminsanahay inuu ahaa mudaharaad غير sharci ah dawladdu waxay caayimaysaa goobo waqtiba caayimaysaa tiraa la doonaya inta uu baalmarsanaa أنا واحد سليم مسؤولية ده واحد عاي واحد كلا حسب هذا معارضك. عسكرت حبد الردينا خالد ماهد سمسين كده. عسكري كمرك لا داوعه أورنتي أنا واحد سليم مرك عسكري لا داوعه يلا دبعتيه دوري سيدة عسكري لا داوع ماي ودكتور حوجا لو تهاي ولا شيء ولا فاش لا داعي مرك قفك بالعادة كوا وصورتك لكن ما هو سنين دتكم. dadku meelaha qaar saas ba gawarda ciidanka ku dhacday inaad ogteen kala mooyay dadka qaar bay guriyaha xabad ugu tagtay qofka guriga ugu tagay dhintay mas'uuliyadda soo xukuumaddu ma laha iyo khaladka waa dhab ceergaabo kala seelaar ku dhacday in kastana laamiga amniga aan ka tirsanayn waa suurtagal way dhacaysa sababtoo si guud baa u dhacdaaba fidmad kastoo dhacda kuma koon gaar noqoto cid gaar kuma noqoto laakiin fidmadu ma wada saamaysa adiga wasiir waqtigii xukuumadda maxamed silaan adoo wasiir ku xigeenka amniga gurigaaga la weeraray xabad baa lagu riday maxkamad baa ku xukuntay waa lagu xiray haddana adigu waqtiga waxa isku difaacday rasaas waxaana sheegtay inaad saxsanayd ciidanku khaldan yihiin maanta ciidanka rasaaseeyay dad bilaa hub ah iyo kuwii aad iskaga difaacaysa xabaddu maxay ku kala duwan yihiin أنا gurigeyga lagu soo weeraray shariicada salaamkuna iyo dastuurka qarankuba mudaharada xaq u leeyihiin bay dadkan waxay ku dibad cidla iyo weli goobaan loogu talagalay inta badan kooda dhaawacmay goobta loogu talagalay dawladdu ugu talagashay qof ku dhaawacmay qof ku dhintay midna ma jiro sababta ma laga yaabaa xilka maanta aad hayso iyo waqtigaas madaxweyne Muuse la safnayd xirsi cali xaaji xasan iyo tiimka kale gudaha ku jireen saysiin inuu faqrigu yahay ee aanu hayn askariga xabad riday ma aanu runada doonayso aanu askariga xabad igu riday iyo kii weerarayba imika ba saxiib baan lahay kii gurigeyga soo galay waa askariga waa la diraa oo dhibaato badan oo markaa askariga in la diro marka runtii uma arkayo wax weyn inay ku jireen laakiin aan waxaas leeyahay duruuftaydii iyo duruuftani aad bay kala duwan anigu gurigeyga baan joogay waan hurday carruurteydii ma la joogay nin gurigiisa loogu tego lagu weeraray ma jirto maanta xaq u leeyin ku jiro maanta ku sheego maanta cirro dhowr iyo 30 qof buu ku haystaa meesha oo ciidankiisa oo reer jifadiisiya oon ciidanka qaranka aynu hubisita dawladdu way ogtahay haddana waxa la ilaalinayaa miyuu haystaa lama garan karo imika gurigiisa haddaad tagto ciidanka ma kuma tirsan waxaan guriga ku haystay gurigiisa qaranka meedan awood sodiga yidhi awood dawladnimada leenahay dawladda dalka taliso ma baahnin haddii ciidankii uu cirro oo aan ciidanka gacanta ku hayn oo aan maamulaynin gacanta ku haysto asaad sheegayso awoodda dawladnimo maxaad ugu maamulay horta waxaan wax kasta waxa u baahan yihiin in la eego la qiimeeyo duruufta taagan la eego
maanta ninkaasi isagu diyaar wuxuu inay Soomaaliland dunto isagu diyaar yahay anigu Soomaaliland qacanteeda ku dumin mayno marka 34 askariya reerka ciidamada mareeraad u taqaanaan wasiir 34 boorgaadhi ciidanka askari ciidan ka tirsan uu isku kooban yahay waa 2-3 qof laakiin waxa kale oo maleeshiya beelada gurigiisa ku haysto marka maleeshiya beelada hadii guriyihii lagu haysto waa maxay xukuumad maxad ka tihi waxaanu ka nahay wax kasta waxa u baahan yahay waqtigiisa in laga falceliyo waxa imika jirta laamaha dawladdu way la xiriireen wixii ciidan ah ee aan ciidan ahayn inuu xeradii gurigiisa ka saaro laakiin haday duruufo timaado oo aragno inaanu nidaamka dawladnimada ilaalinayna dawladdu waxay go'aamo qaadan doontaa eedan culus maxad ku cadeynaysaa waa wax jooga xalay habeenka dhawey toole wadaarkay rabbi qoriya sare u siday waxay ciidan beelad bahay ugu dambeyntii suuqi wahayn halku ku dambeeyay dhismihiisa suuqa wahayn guddi baa gacanta ku haysa meel fiican oo maraya dhismihii waad bixiseen qaybo qandaraasyada ka tirsan maxaa dhismaha loo bilaabay waqti dheer baa ka soo wareegtay dhismayaasha qayb ahaan way socotaa qayb ahaanna waxa farsamo ahaan baa loo wadaa imika oo guddi waxa qodii Suudaaniinta gacanta ku haysa luqmaan maxamed faarax iyo shaam MMTV hargeysa shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa